عدي كون نسيه لقتها قعيدو عارفي يا وفادو افتكي عبيدو عتميدة جنكيدو عيشوني وليقا kusoo dhawaada Puntland TV waa barnaamijkeena astaan horumar waxaa marti inoogu ah studiogan Melbourne ee Australia Dr. Cabdiraxmaan Kulmiye oo ah wasiiru dawlaha khayraadka badda iyo kalluumaysiga. Cabdiraxmaan wuxuu ku haystaa shahaadada ugu sareysa ee PhD-da kalluumaysiga iyo khayraadka badda iyo shuruucdeeda. Cabdiraxmaan kusoo dhawow Puntland TV faraciisa Melbourne ee studiogiisa aan caawa halka fadhino. waa dhawahay Cabdi Cilmi waana mahadsantahay. waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo koobto wasaaraddaada iyo waxay qabato iyo hawlaha hadda aad gacanta ku haysaan iyo meesha xaal marayo. wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda Puntland waa hay-adda dowladeed ee mas-uulka uga ah dowladda Puntland horumarinta tashiilka iyo maareynta khayraadka badda iyo kalluumaysiga. wasaaraddu waxay ka mid tahay wasaaradihii la dhashay asaaskii dowladda Puntland 1998 runtii shaqo weyn bay haysaa. badda Puntland waxaa lagu tilmaamaa inay bar ka tahay badda Soomaaliyeed. waxay kaloo tahay baddaasi badda ugu khayraad badan mandiqada annagu aan ku noolnahay ee la galbeedka badweynta Hindiya. shaqooyin badan bay qabataa sidaan soo xusay oo waajibaadka ay leedahay waxa weeye maareynta horumarinta iyo tashiilka khayraadka badda iyo kalluumaysiga. ilaa gobolladoo dhan iyo degmooyinka xeebaha loo dhan waa joogtaa. xafiisyadu waa ka furan yihiin. xarunteeda dhexase waxay ku taallaa magaalada Boosaaso oo ah magaalada ganacsi ama magaala madaxda ganacsi ee dowladda Puntland. haddii intaas aan ku soo koobo wasaaraddu waxay tahay wasaaraddu waxay ka mid tahay wasaaradaha dowladda Puntland sidaad la socotaan dowladda tan hadda uu madaxda ka yahay madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay dhalatay waxay la dhalatay inay soo rogto reforms. wasaaraduna qayb bay ka tahay reformskaas wuxuu taabanayaa ama dib habeyntaasi xagga shaqaalaha sharciyada shatiyada la bixin jiray tababarada maaragtay shaqaalaha wada shaqaynta hay'adaha la leenahay iyo kaabayaasha dhaqaalaha. intaasi meel fiican bay noo marayaan. waxaan rajaynayaa marka ay dhamaato in ay wasaaraddu gudan doonto waajibaadkeeda oo dhammaystiran. haddii intaas aan ka gudbo waxa weeye waxyaabo badan oo socda oo mashaariica oo loogu talagalay ama ha ahaato tayeynta adeegyada wasaaraddu bixiso ama ha ahaato kor u qaadidda kalluumaysatada xirfadeeda ayaa socda oo tiro badan oo aan dib maaragtay aanu ugu imaan doono haddii rabbi maadaama aad soo qaaday tayeynta iyo waxyaalaha aad bixisaan waxaa jirta cabasho badan oo ka imaanaysa kalluumaysatada yaryar ee danyarta ah oo ka cabanaya in maraakiib waaweyn ay dhibaato ku hayso. arrinta maxaa ka qabateen? waa run cabasho waa jirtaa. mid anaga nala dhalatay iyo dowladda tan hadda jirta la dhalatayna maahan. waa mid ilaa iyo sida ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991dii la dhalatay weeye. oo waad ogtahay oo badda waxa weeye waxaa ilaalin jiray ciidankii badda iyo difaaca xeebaha dowladdii buu la dhacay. badda Soomaaliyeed waxay noqotay bayla. nin kastoo markaas u arkayay inuu lacag yar ku samayn karo lacag badan ku samayn karo dhicitaanka khayraadka badda Soomaaliyeedna wuu soo galay maadaama ay ogaayeen meeshaan meel la ilaalinayo inaysan ahayn. waa wax soo jiray weeye. haddii si kale aan u eegno maaha wax Puntland kaliya ku eg kalluunkan sharci daradaahi Soomaaliyana kuma eka. waxa weeye waa arrin caalamiya. haddaan tusaale ku siiyo adduunka waxa lagu qiyaasaa kalluunka la dhaco oo adduunyada laga dhaco 23 bilyan oo dollar. dowladda hadda aan la joogno oo wadankeeda joogno Australia waxaa jira ayada laftigeeda in kalluun laga dhaco badaha la yiraahdo Southern Seas. waxa laga dhacaa kalluun baa laga dhacaa. annagoo ognahay dowladda Australia yani resourceska ama dhaqaalaha ahaato ama ciidan ahaato ama maraakiib ahaato ay leedahay. waa run waa jira dhibaato weyn oo haysata baddeena haysata guud ahaan Soomaaliya tan gaar ahaan Puntland. sidaan soo sheegnayna Puntland maadaama ay tahay meesha ugu khayraadka badan dhibaatada ugu weyn ee kalluunka sharci darrada ayadu ku dhacaya. laakiin ha ku dhacee waxa weeye waxaan u qaybin karnaa laba arrimood. wixii offshore ama badweynta ka dhaca
iyo mid inshoreka waxa loo yaqaano ama xeebaha dhow ka dhaca offshoreka waxa weeye waa meel anagu aanaan gaari karin laakiin laga dhaco badeena waxayna maaragtay ay diiradda saaraan ama taargadgareeyaan kalluunkan guura ee tuunadaya ah waxaa jira qeyb kale oo kalluunka sharci darrada ah oo maraakiibta iyo doonyuhu ay yimaadaan xeebaha yimaadaan oo kalluunkii xeebaha marayay ama qarjiifka ahaa ay ka dabtaan kalluunkaas iyo khayraadkaasi nin ajnabiya oo aan waddanka aqoon dabcan ma imaan karo waxa soo hogaamiya oo keenaya waa dad Soomaaliyeed weeye waa dad reer Puntland weeye waliba waa dadkii badda ku noolaa weeye sax dhibaato weyn baa naga haysata dadkaasi wacyigoodu runtii markaan si kale u dhahaa waxa weeye ma gaarsiisana sidii la rabay sababta waxa weeye waxa kan uu ninkan u sahlaya dhacaya waa khayraadkii uu ku noolaa ilmihiisu ku noolaa ama kuwa dhalan doona Soomaaliyeed ku noolaayeen laakiin maanta asagu wuxuu ka eegayaa waxaan yarkaahi oo runtii aan u qalmin waxa uu laga qaadanayo wacyigelin miyaan loo samayn karaynin dadka in la fahamsiiyo dhulkooda iyo khayraadka inay iyagu leeyihiin waxa ay wax ku gadanayaan ama dadkan ay dulaalka u yihiin khasaaro iyaga iyo dantooda iyo dhulkooda iyo ummadoo dhan ay ugu jirto waa loo sameeyaa wacyigelinta oo wasaaraddu waa samaysaa dowladda guud ahaan waa samaysaa xeebaha waa la tagaa kormeeraan ku tagnaa raadiyaashaan kasii daynaa tvgaan kasii daynaa laakiin waxa weeye waa dad aan intaasoo dhan tixgelinayn weye runtii ana fahamsanayn waxaan laga qaadanayo iyo waxa ay qaadanayaan inaysan isku dhignayn kaaga daranta waxa weeye ninkan waxaan soo hogaaminaya wuxuu ku nool yahay bulshadii kalluumaysatada ahayd buu ku dhex nool yahay sax waxa laga yaabaa maanta ninkaa haddii dowladdu ay tilaabo ka qaado damacdo in tolaaya uu yidhaahdo hab qabiil iyo maaragtay hab kale oo aan fiicnayn iyo maaragtay bulaan kale inuu kiciyo waana dhacday 10 jeer bay dhacday laakiin dowladdu waa og tahay waxa weeye ninka gaaray inuu soo hogaamiyo nin ajnabiya oo khayraadkiisii la guranayo oo wuxuu asagu ku noolaayo waalidkiis ku noolaayo walaalkiis ku noolaayo ilmihiis ku noolaan doonaan waxa weeye sabab kasta uu ku badbaadinayo in shaqada tan iyo waxa kan uu dhacaya u socdaan uu sameynaya waxaan jeclaan lahaa in aan wax kaa weydiiyo ciidamada ilaalinta badda ee Puntland oo la yiraahdo marka la soo gaabiyo BMPF waxaas يعني dhibaato oo dhacayso aad leedahay yani sharci darra lagu sameynaya maxay wax uga qaban waayeen iyo runtii waa ka qabtaan meelo ay joogaan xeebaan boosaaso waa joogaan waxay joogaan xaafuun waxay joogaan ayl waxay joogaan bargaal inta hartay xeebahana waa la geyn doonaa haddii rabbi idmo laakiin waxaa aan rabaa inaan carabka ku adkeeyo ciidamada tan markii la dhisay waa ciidamo badeed weeye laakiin markii waxaa loogu talagalay dhibaato markaa taagneyd oo ah burcad badeedka in dhulka lagala dagaalamo marka qalabka ay haystaan wuxuu u badan yahay qalab dhulka loogu talagalay diyaaradaha jira baabuur baa jirta hub baa jira haddana waxa ku soconta qalabayn xagga badda ah waxaan rajaynaynaa inay aad iyo aad mar dhow ay si guud oo dhan ay u hantaan baddeenna markay qalabayntaas iyo howlahooda u dhammaato waxaa maalmahan la qorayaa ay qorayaan websiteyadu ama dad badani ay ka hadlayaan oo reer Puntland inaad hawlgeliseen maraakiib brevada oo ciidamo saaran yihiin ama ay dad leeyihiin arrinta cabasho badan ayaa laga qoray oo laga maartay ka soo yeeraysa maxay marka ciidankaasi ay yihiin maxaase yani keenay in la abuuro ciidan noocaas iyadoo ay jiraan ciidamadaas kale waxa weeye horta waxaan wax yar inaan ku noqdo waataan hadda aan ka soo hadalnay cabashada ka soo yeeraysa kalluumaysatada iyo dhibaatada baddeena lagu hayo taasi waxay khasabtay in la helo in gaadiidkii lagu difaaci lahaa ciidamadii difaaci lahaa in arrintaa lasoo afjaro ilaa muddadaas hadda halka sano iyo xoogaaga ah oo ay anagu aanu dowladda ay jirtay madaxweynaha ka yahay professor cabdiweli maxamed cali gaas wasaarad ahaan waxaan ku jirnay dadaal ah inaan helno qalab lagu ilaaliyo badda meelo badan baan u marnay banaankaan aadnay wadamo badan baan marnay kambaniyaal badan baan u yeernay waddankan keennay waxaanu isku dayanay in heshiis aan la galno maadaama anagu aanaan markaan haysan qalabkii aanu ku howlgeli lahayn ama ciidamadeenu ku howlgeli lahaayeen nasiib darro kambaniyadaas aan la kulannay qaarkood waxay noqdeen kuwo maaragtay aan lahayn
awoodii loo baahnaa laakiin damaaci waday bay ahaayeen oo waxa ay keenayaan ahayn wax aan noo cuntamayn dowlad ahaan iyo dad ahaanna qaarkoodna waxay ahaayeen qaar dalbanaya awoodii way lahaayeen maraakiibtu way hayeen laakiin waa qaar dalbanaya lacag anagu aanaan awoodin markaa taas hadday dhacday meesha la iska fadhiyi maayo waxaanu aanu markaas aanu heshiis la galnay hay-ad wadaniya oo ilaa 2 markab 3 markab leh oo awal badda ka shaqayn jirtay oo haddana diyaar waa inay nala gasho oo heshiiska aan la galnay uu yahay mid wadanka iyo dadka iyo badda iyo kulli wax ugu yaalla weeye waana muwaadin Soomaaliya oo reer Puntland ah iska leh asaga shaqadiisu waxa weeye inuu markabkii keeno shaqaalihii wadaya keeno wasaaraduna shaqadeedu waxa weeye inay saarto ciidankii dowladda Puntland iyo saraakiil wasaaradda kalluunka ka tirsan markabkaas wuxuu ku shaqeynayaa amarka wasaaradda kalluunka ku shaqeynayaa waxa ka howlgalaya ama wax qabanaya ama xiraya ama inspector gareynaya oo isbaqshimaya maaragtay maraakiibta inay laysan leeyihiin inaysan laysan lahayn inay sharci darro ku kalluumaysanayaan waxa weeye wasaaradda kalluunka kalluumaysiga saraakiil ka socota iyo ciidanka dowladda Puntland oo ah ciidanka dekada ilaaliyo weeye marka dowladda ciidamadeedu hadday noqdaan ciidanka badda iyo hadday noqdaan ciidanka dekada ilaaliya iyo hadday noqdaan ciidanka dhulku kulliga oo ciidankii dowladda weeye ma fahamtay oo dowladdu awood waxay u leedahay ciidanka ay rabto meesha ay rabto inay u dirayso taa macnaheedu ma ahan in ciidanka badda annagu aanaan wada shaqayn lahayn wada shaqayn baan leenahay wasaaradda iyadu waa wada shaqeeyaan laakiin waxa weeye ciidankaasi waxaa hadda qorshuu yahay inaan la samaysano waxa la yidhaahdo operating procedureskii heshiiskii haddii doontii lasoo qabto markabkii lasoo qabto meesha sida loo haynayo cidda lagu wareejinayo arrimahaasina waa socdaan ciidankii ku socda hadda qalabeyn ku socdo oo mar dhow asagu la wareegi doono xilkaas oo dhan wasiir waxaa dhowaan soo saarteen sharci oranaya in la xirmeeyo dhulka oo aan runtii dadku badanaa ay ka cawdeen maxay tahay xirmeyntaas iyo dhulkan soonka la xiraya ama la oranayo waqtigaa lagama kalluumaysan karo halkaa iyo waxyaalaha noocaas bal noo wax ka dhayadan horta sidaan soo sheegnay wasaaraddu ayadaa mandate iyo awood iyo mas-uuliyad ka saaran tahay tashiilka khayraadka badda ku jira haddii loo arko khayraad ka mid a khayraadka dadku gurtaan oo ay jilaabtaan inuu dabar ku imaanayo wasaaraddii dowladda xil waxaa ka saaran inay faragelin samayso sidaad la socotaan waxa weeye aragostada oo ah khayraadka runtii ugu qaalisan oo hadda baddeena laga helo marka la yidhahdo volume by volume la yidhaahdo dhibaato weyn baa la gaarsiiyey runtiina meel weyn bay ka soo baxday waddanku intuu ku jiray qalalaasaha ku jiray waxay ahayd dhaqaalaha ugu fiican oo ay reer Puntland helaan nasiib darro waxa weeye markaasi dowladihii naga horreeyay markaa jiray yacni lama siin ahmiyaddii tashiilkeeda ay lahayd lama siin ayadoo siyaabo kale laga arkayo oo waa too oged oo xoolihii marka la joojiyey waxay ahayd ishii dhaqaalaha ee keliya ee markaa Puntland u furnayd ee lacagta adag lagu helayay dadkii marka laba siyood baa la sameeyaa ama mar dadweynaha ama kalluumaysatada laftigooda ama bulshada ayaa isxakamaysa oo waxay guranayaan iyo waxay dhaafayaan iyo tashiilkii ayagu ka yimaada ama wuxuu ka imaanayaa dhankii dowladda buu ka imaanaya nasiib darro dadkii waa isxakamayn waayeen argoosta waa argoosto hadday dhalayso iyo hadday yar tahay kulli wixii gacanta lagu dhigo waa la qaadanaya midda kaloo jirta waxa weeye waqtiga la ogaarsada argoostadu waa waqtiga ku beegan waqtiga ay dhasho waxa weeye marka waxaa arkaysaa xeebaha tagtid argoostadii iyo ukuntii saaran tahay oo la soo saarayo sidaa darteed waxaanu u dareenay ama u garanay wasaarad ahaan haddaan nahay in haddii aan faragelin la samayn ay argoostadu naga dabar go-ayso sidaa darteed waxaanu soo rognay in waqtiyada ay dhalayso la xakameeyo oo aan la guran oo dadka loo jeheeyo kalluumaysiga maadaamaad soo qaaday xakamaynta iyo ilaalinta iyo maarata daryeelka xoolaha badda ku jira ama aragoostada aan idhaahdee dowladdu ma ugu talagashay wax yacni qalabayna ama tayeyna kalluumaysatada yaryar ee reer Puntland waa loogu talagalay waxa weeye hadda xeebtan Indian Ocean-ka ilaa waxa ku yaala 10 meelood oo leh qaboojintii leh oo barafkii leh
oo leh maaragtay generatorkii ama korontadii leh waxaan kaloo aan samaynay si suuq loogu helo waxaan ka dhisnay qaboojiye magaalada Boosaaso waxaa laga dhisay magaalada Garowe waxaa hadda dhawaan la rajeynayaa in laga dhiso magaalada la yiraahdo Gaalkacyo haddii Rabbi idmo marka kulli waxay ku u yihiin kuwaasi inay outlets ama suuqyo u noqdaan kalluunka laga qabanayo badweynta laga qabanayo oo ay u noqdo maaragtay ninka haddii laga joojiyay aragoostadii ninku wuxuu rabaa nolol buu rabaa qofkii dabcan caruur buu leeyahay dad baa ku taxalluuqa nolol buu rabaa isagii ninkii in yani la meel la fariisiyo oo dee nolol maalmeedkiisii la dhibaateeye lama rabo marka dadku waxa weeye way haystaan isla markaa waxa weeye doonyo horey waa loogu qaybiyaa tiro badan ilaa tsunamiga doonyaa la qaybinayay qalab baa la qaybinayay haddeertaan waxaa socda waxa la yidhaahdo fleet renewal baa socda oo doonyihii hore oo lagu kalluumaysanayay doonyo ka bedelan oo xagga efficiencyga ama shidaalka ama maaragtay waxqaadka ayaa hadda socda oo dhawaan laga bilaabaya meesha la yiraahdo Boosaaso loona qaybin doonaa kalluumaysatada haddii Rabbi idmo maraakiibtaas badda sharci darrada uga kalluumaysata ama qaarkood aad saad u sheegtay ay ku xiran yihiin dad lokala oo yacni soo haga ama soo hogaamiya inay kalluumaystaan laysimada yaa siiya had iyo goorna dood baa ka taagan laysimada laftooda dowladda dhexe dowladda Puntland xiriir intee la eg baad saleediin idinkii dowladda dhexe waxay heshiisama idinka dhexeeyaan laysimada sida loo bixinayo mise qolo waliba waa jaataan rogan waxay rabtay bixisaa saasaa nabad guurkiina sii kordhisay waxa weeye horta intaanan ugu imaan kalluumaysiga iyo sheetiyadiisa intaan ugu imaan dowladda dhexe Puntland waxay ka mid tahay dowladda federaalka ah wada shaqayn baana naga dhaxaysa dowladda Puntlandna waa hooyadii federaalka maan oran karaa dabcanna haddee mar walbaba hooyadu ilmaheeda yani waxa weeye waa inay macaamil wanaagsan kula dhaqantaa dowladda dhexana waa dowladdeeni weeye waxyaala lagu kala aragti duwan yahay oo guud waa jirtaa haddaan usoo noqdo su-aashaadii waxa weeye dastuurku wuxuu ka hadlayaa sida khayraadka loo qaybsanayo kan Puntlandna madax bannaan tahay khayraadka iyadoo ay leedahay ilaa inta Soomaali isku timaado oo dowladaha federaalka la dhiso iyo dowladda dhexe inta la isku yimaado wax la qaybsado oo qolo walbaba maaragtay awoodda ay leedahay dhanka khayraadka marka laga hadlayo la qaybsado iyadoo sidaasi jirto oo anagu aanu aaminsannahay inaanu u madax bannaannahay laysamada bixintooda waxaanu isku daynay xataa intaan heerkaa la gaarin oo waqtigaa la gaarin waad ogtahay in dowladihii maamuladii dowlad goboleedyada kale weli ay dhiman yihiin inaanu balmidayno laysankeenna offshoreka ama badweynta ah waxaanu isugu tagnay waddanka Seychelles dowladda dhexe federaalka Somaliland Puntland Galmudug iyo Jubbaland heshiis baan gaarnay mar labaad baan waxaanu isugu tagnay meesha la yiraahdo Addis Ababa heshiis baa la gaaray qodobaysan awoodda cidda iska laysanka bixin karta waxaa lagu heshiiyey hay-ad federaala oo ay dowlad goboleedyada dhan ka yihiin directors oo board of directors leh laysankuna hay-addaasi bixiso wixii ka soo baxana waxaa loo qaybsaday boqolkiiba intaasoo maaragtay hay-adood intaasoo dowladood nasiib daro dowladda federaalka ahi si kelinimo ah ama nintooxsiyay u laashay heshiiskaas hadda lafteeda lagama samrino waxa weeye waxaan rajeynayaa bishan soo socota in markaa la kulmi doono anagu marka waxa weeye hadda anaga Puntland ahaan annagaa bixina laysankaasi anagu badda intaanu ka kontaroolno baanu siinaa wuxuuna ku kooban yahay laysankeenu anagu intaanu xukunno ama ha ahaado mid shishe ha ahaado ama mid dhow ha ahaadee haddii lagu heshiiyo oo Soomaali weyn ku heshiiso isla garanno na waxba kama qabno in la bixiyo laysanka shishe haddii la dhigo modalitieskii iyo maaragtay nidaamkii waxna lagu qaybsan lahaa iyo sidii loo bixin lahaa inta laga gaarayo arrintaasna waxa weeye anaga laysanka bixinayna laysanka marka aan bixino wixii anaga naga horreeyay runtii suuqu galay qaar baa la sheegaya lagu bixiyo Dubai qaar baa la sheegayay xeebaha in lagu bixiyo arrinta anagoo ka duulana waxaan soo samaynay laysan aan la macmili karin oo leh security features ama astaamo ama tilmaamo ammaan leh oo cid kasta oo isku dayda aysan
aan samayn karin waa xakamaysan yahay tiradiisa la yaqaanaa waxaanu ka diiwaan gelinay hantidhowrka guud waxaanu ka diiwaan gelinay xisaabiyaha guud wasaaradda bixisa dadka la siiyana waa koobayina waa la yaqaanaa oo macluumaadkiisii marka la yiraahdo markab hebel halkaasuu taagan yahay laysan baa lagu helay waxa weeye computerized weeye halkaasaa laga helaya waxyaalo badan baad soo sharaxday oo tiri waxaan u qabanaa kalluumaysatada yaryar qaboojiyaal iyo waxyaalo kalena waa sheegtay wax kale ma jiraan oo aad u qabataan oo aad ku caawisaan kalluumaysatada yaryarka waa jiraan sida hadda aad ka aragteen tv-ga waxaan maleynayaa boosaaso waxaa laga fuliyey dekad yar baa laga fuliyey ama floating jet waxa la yiraahdo waxaa noo qorshaysan sanadkan haddii rabbi idmo ayl inaanu jeti kale ka dhisno haddii rabbi idmo haddii aan aysan iskeenin waayin budgetka loo hayo iyo maaragtay dhulka laga dhisayo waxaan kaloo aan samaynaa maaragtay tababaro ayaan samaynaa waxaan samaynaa hadda oo socda suuqgeyntii sida aan kuu sheegay oo magaalooyinka waaweyn laga dhisay oo la rabo in yani suuq la siiyo waxaa kaloo socda inaanu wasaaradda aanu u bedelno awood inay wasaaraddu u yeelato inay bixin karto hubin karto tayada kalluunka iyo shahaadooyinka loo baahnaa ama certification waxa la yihahdo taasi waxay u baahan tahay in shaqaalihii la tababaro waxay u baahan tahay laboratoryga in la sameeyo oo lagu ogaado tayada kalluunka ka baxaya sababta waxa weeye haddii aan aysan awooddaasi jirin kalluunkeenii badda adduunka looma dhoofin karo waana dhibaato jirtay ilaa iyo intii dowladdu dhacday hadda waxaa socda waxaan keenay nin khabiira oo tababaraya shaqaalihii hanan lahaa hawsha insha allahu dhawaana waxaan rajaynaynaa laboratorygii inaan dhisno waxaa kaloo jira la siiyaa qalab kalluumaysi waataan soo sheegnay waxaa la samaynayaa waxa la yidhaahdo doonyihii oo la bedelayo waxaa kaloo jira waxa la yihahdo fish aggregating devices ama qalab isku keenaya way kalluunkan sabeeya oo aan rabno meelaha argoostada hadda laga xirayo inaanu geyno macnaheedu waxa weeye waa jasiirad macmala camala weeye oo badweyn la dhigayo oo kalluunkan sabaynayo oo guraya markuu arko uu ku u moodayo meesha inay tahay jasiirad yar marka waa ku nasanayaa halkaas markuu yimaadana waa laga kalluumaysanaya oo waxay u sahlaysaa ninkii intuu badweyn fog aadi lahaa inuu meesha ka kalluumaysto waa gartay waxyaalo badan baad soo taabatay ugu dambeyntii maxaad kula dardaarmi lahayd reer puntland soomaaliya iyo khayraadka baddooda iyo sida yeeli lahayd waxaan kula dardaarmi lahaa ama reer puntland ha ahaadeen ama soomaali weyn ha ahaatee horta marka ugu horeysa inay fahmaan khayraadka kan ayagu inay leeyihiin oo ay jirto dareen lahaansho in la helo wey dareenkaan lahaansho haddaan la helin khayraadkeeni dhib buu ku jiraa war waxaan adinkaa iskale runtii haddii dadka anaga naga horreeyey sida hadda aanu ula macaamilana khayraadkeeda ula macaamilaana anagu hal xabo nama soo gaareen waxaa naga saaran waajibaad diiniya iyo mid wadaninimo inaan khayraadkan tashiilno si anaguna uga faa'iidaysano ummadda naga dambaysa ee soomaaliyeed oo ay ku jiraan ilmaha iyagu iyo kuwaan dhali doonana ay uga faa'idaystaan waxaa la rabaa in aanu kulligeen isku meel uwada jeedsano haddaanu nahay dowlad nahay iyo haddaanu bulsho nahay waxaa keliya oo la heli karaa khayraadka in la badbaadiyo in qofka soomaaliga ah i garto waxaan laga qaadanayo iyo waxa la siinayo inay isku dhigmaan iyo inaysan isku dhigmin midda kaloo jirta waxa weeye dadka soomaaliyeed ama reer puntland baddooda ayagaa leh inay ka faa'iidaystaanna loo diidi mayo way ka faa'iidaysan karaan meesha ninkan uu qabaanka u noqonayo ninka kan uu soo kaxaynaya oo shilimaadka khayr noqonayo muxuu ugula gorgortami waayo war anna khayraadkii baan leeyahay adiguna markabka baa leedahay noo kala qayba waxaan la qaadayo xataa hadduu yidhaahdo waa wax dhan weeye laakiin in laga qaato 5 fuusto iyo wax la mida la siiyo asagoo 100 laga qaadanayo caybay ku tahay garaadka reer puntland iyo soomaali mahadsanid cabdiraxmaan kulmiye wasiiru dowlaha khayraadka badda iyo kalluumaysiga ee dowladda puntland oo nagu soo booqday stuudiyaha melbourne ee puntland t v aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay doctor عدل كل نسير